إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد aniga geygan aanu ku noolahay geeska Afrika axadkii muslim ah iyo qeyrkii ay garanaya wuu i garanaya kaani garanayna aniga isu sheegaya waa Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame oo macruuf ku ah Aadan Sunni saaka waxaan fadhiyaan idinkala hadlayaa gobolada Soomaaliya mid kamid ah gaar ahaan wilaayadka islaamiga ah ee xarakatu shabaab almujaahidiin ay gacanta ku hayso ee uu ka babanayo dusheeda raayadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cayimay tawxiidka uu dhexda kaga xardhan yahay ee rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa aan joogaa bilaad ay ka hirgashay al-hurriya al-mashruuca المنضبطة بالكتاب والسنة حرية القرآن كي السنة دو أي نوع قليهين إيا حدودها إلهي الضومضة أدقى يسوهدمها لدونا يأينا نكوش غينا آدمها دان نحي الآن وحان حروة هاي وحان أنقو من سنة هاي مبدأ حق الدين تا إسلامك مروعي يردقن تلاقي يتلمان إن المانتو قد بيو أنقون هذا الله دا سربيبينين وآيها قار كود سيدانو سربيبيش لأن هراء الله شاقي الجهاد منبر لمن لا منبر له أظن كأدنيا اللقو عبرية منبر وايا من رايد جهادك كبابانيسو أيو كلمة دي صحقا كعدين كرا هدي لهي ما أنت نرى لي عافي ما دي دوكسو قارسيي وآن صوب غولان هل كان إمي وحان لا يهي بدي يبري بسك هوادا ميدان كسو بودي برمد الله با يقول بيدي بقر كي ويناي بلشدان u soo bulladay bogatay khayrkiye bartaan rabay boqolaan ku imi buruntidaydii balaayada rabbow naga bari baa tahay waxaan doonayaa mawduuciga maanta in aan ku bilaabo aaya min alqur'aan alkariim liyahlik man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina maalintii ceelka badar rasuulka iyo gaaladu la isugu yimi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoon loo ballamin heshiisna lagu ahayn liqaaga iyo kulankan baa ilaahay labadii saf kulmiyey xikmaddu uga jeedana waxay ahayd adduunyada goobtan qofkii halaagsamaya inuu ku halaagsamo xujo cad kii noolaanaya ee ku noolaanaya markaa islaamnimo iyo shareecana inuu noolaado markaa isagoo xujo cad ku sugan waxaan doonayaa maanta anigu waxaan markaasi xuduudda juqraafi ahaan adoomadu ay ku kala nool yihiin burco laamiga madow ee bari uga baxa maan arag laamiga madow ee dhammaan Soomaaliya u soo baxa noloshaydu inta ay jirtay maan arag dhinacana kama soo marin wixii xagga ka xageeyo mooyaane waxa adoom kasto caaqil isweydiinaya maxaa keenay Aadan Sunni halka waxa ay soo kiciyay waxa weeyaan horta waa mabaadi saamiya oo aaminsanay oo kamida manhajkayga markaasi qanaacadeed ee diinta islaamka waana wax markaa la kalifay cadowga maanta goobaya islaamka cidda indhaha u ah ama u baaqaysa ayaa anigay soo barakiciyay ee bariyahan iimay qoondaysnay inaan halkan imaado sababtoo diintayda waxaan ugu gargaari karaa laba waji culimaduna markaasi sharciga waa ay sheegeen ima in diinta ugu nusrayso al-jihad bil lisan oo xujo iyo cilmi iyo bayaan ah inaad ugu nusrayso diintaada al-jihad bisayf wa sinan inaad markaa seef iyo hub qaadato oo cadowga markaa hor taagan dacwadda islaamka inaad dariiqa kaga leexiso anigu markii hore khiyaarkan taagnaa wuxuu ahaa ad-da'wa iyo jihad bil lisan ah laakiin waa lay ogolaan waaye thaqalaynkuna marxaatibay iiga yihiin hargeysa ayaan ku noolaa oo aan ku dhaqnaan joogay dhibaatadii iga qabsatay maanta caloosha bini'aadanka oo leeyahay ilaahay maqaarka u sameeyay aniga saab aadama sameeyay baa ku jira waxaana sababay
inay markaasi nimanka ay markaasi carbisteen gaaladu ee askarta iyo casaakirta waa qaybo ka mid ah Somaliland sida markaasi aaranka geelu barwaaqada kaliisha markuu dhargan baraarka ugu durduriyo baabeerkana lagaga tuntay oo lagu durduriyay oo kabta weyna qadha meel maskax iyo miyir ku yaalo iyo hilbaha halbowlaa midna aan looga nixin si kasta ayaa katiinadna loogu ciijiyay dembiga aan u galayna waxay tahay wama naqamu minhum illa an yu'minu billah inaan ilaahayda rumeeyeen mooyaane wax kale annaguna muuminiintii loo dhibay ilaahayna rumeeyeen baan nahay inaan dacwada xaqaana dadkaan u xambaarsanay amaanadiina runta ka sheegno arrintaasi markii ay socon weyday bedelkeeda waxa meesha ka shaqaynaya wadaadadaanu meesha ku joognaa 3 xeerin oo kaliya u qaybsamayaan wadaad buulkiisa galo balaayadu meesha maraysa markuu arkay isiri markaasi nimankan cidigaha iyo xagxagashadooda u taakiin meyside iska gaagaabso iyo mid isagu marka horeba isa sheegay nin casarkiisa sheegay cishii ceebi mar raacde nidaamka meesha ka jira la gaardiyay bal nidaamka daaquutiga ee meesha yaala isaga baarka u fidhaya oo dalle iyo daliil u raadinaya qaybta saddexaad waa in ila maca oo iyagu ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii uu quraanka iyo sunnada ku sheegay aan dhaafaynin xadgudubna ku sameynaynin ta'wiil baadil iyo inxiraafna aan la imanaynin qolada markaa dhibanaha meesha ku ahi waa kuwa taa bedelkeeda waxaa sii dheer xaqii marka la is hortaagay dalka markaa maanta lagu magacaabo Somaliland shalayna ahaa goboladii waqooyi ee Soomaaliya waxa weeyaan intii burburku dhacay dawladii markaa Soomaaliyeed ee tagtay dabadeed si fiican baa markaasi baarka loogu fidhay fasaxna loogu siiyay hay'adka dawliga iyo kuwa NGO-yada ee gaalada iyo kaniisadu ka dambeeyaan wadankan u dhalanay arinta xan maaha waxa ku waramayaan ay ku hor jooga waa xogagaal naasix ah oo kamid ah aanad waxba u foojar gareyn kareynin si aynu wada ogsoonahay hay'adan oo tabshiiriya ayaa markii aanu ku baaqnay dhibaatada ay wadaan in laga qabto ummadda waa laga joojiyay NNM baa kamid ahaa somdef baa kamid ahaa dhuumasho dhabarku muuqdaan ay dhuunteen daaqadana way ka soo galeen oo way soo noqdeen oo waanu ognay qaarkood baa baraarka iyo ariga dhaqa daarihi iyo sarihii ay ku jiraan markay xamili waayaan farta ku fiiqnay waxay dhan Soomaalidan oo ariga u dhaqaynaa qaarkaadna baabuurta markaa calaawiga ay Soomaalidu taqaano iyagoo kolanya ah bay markaa xuduud beenaadka iyo dhinaca hawdka iyo waqooyiga magaala madaxda Soomaaliland ay u kala baxaan oo aanay kala go'in oo islaamaha odayaasha reer miyiga ah oo dhaadana naga idin biilinayna abaarta taala dhulka waynu ognahay iyo darxumada iyo biilaaanta iyo oonka $60 baa qoyska loo qoraa $60 waa inaanu awrkiisa iyo hashiisa iyo aanu markaa idihiisa dhaqanin $60 waa inaanu beertiisa falanin $60 waa inaanu dalkiisa khayraadka ku qarsoon aanu la soo bixin waxa weeyaan caruurtii yaryarayd ee dhalinyarada rag iyo dumarna madalaad iyo hay'ado kala gaar ah ayaa kala qaybsaday dhaqankuna way ka iibsan caqiidadana way ka iibsadeen waxa marxaati kugu ay namada yaryar ee Hargeysa iyo Burca u dhashay intaanan gobolada kaleba gaadhin waa kuwa mar walba baraha bulshada fadhiya ee diintii shalay ay ku dhasheen ee lagu soo barbaariyay caayaya cid markaasi amni iyo suldad sheeganayso aamusiisa talaabo ka qaadana ma jirto bal TikTok ay soo fadhiistaan iyagoo siday doonaan Nabi Maxamed u caayaya bacdama baadariyaasha diinta ku faafiyo qofkii ka hadlay hanjabaad cad heer madaxweyne loogu hanjabay qaarkoodna jeer ay maanta markaa u dhaxurdaan iyo xabsi waxaynu ogsoonahay wax kasta oo wada kullu daa lahu daabay tiri gabadhii markaasi xadiis mustarci ku jirtay cudur oo dhan baa cudur ah balaayada adduunka oo dhan baa loo soo waariday muxuu ahaa markaa Afrikaankii Botswana uu ka yimi dhaqan xumada ragga lagu sameeyo markaasi hogaaminayay kii Mareykanka ah dhaqan xumada ragga lagu sameeyo hogaaminayay naagtii Ingiriiska ahayd ee markaa genderka iyaduna waday ee lahayd hablow raka maarma oo inaniba inan ha ku maaranto Hargeysa sacabka loogu garaacay iyo xarunta ay ku leeyeen book fire la yiraahdo ayaa sacabka loogu garaacay madax iyo mijaba waa la taagnaa maalinta sacabka la garaacayay wadaadadii ka hadlaan ka midna heeloo haydaartay arinta loo dhibay cid kale oo ka hadashayna ma garanayno oo aan ahayn cid aan markaa sawdkeedo aanu muuqanayn aan ka ahayn cid kale oo ka hadashay ma garanayno waxa kamida markaasi kuwii kala dambeeyay ee Kenyaanka ahaa beebelada qaybinayay ee iyagu markaa gacantooda dalka kaga soo saareen
imika maxaa ka socda dhulkii hadda aynu joogno haddadan maxaa ka soconaya waxa weeyaan markaasi bulshadii baa fasax lagu siiyo way hantiyeen dawaa'irta tacliimiga iyo tarbawiga oo dhan waxay la galeen meelo markaasi iyaga u gaar ah ilmuhu waalid iyo wadaadtoona rasmiyan ma arko waxyaabaha mandarka la soo dhigay foojariga laga dhigayo waa waxba kama jiraan tacliintii hoose iyo ta dhexe iyo ta sare intiiba gacantay ku hayaan faracyo ayay u sameeyeen dalka oo dhan baa la rabaa weliba in markaa tuulo walba la gaadhsiiyo waxaa la rabaa markaasi tacliin qarbi ka timi oo ku dhisan mabaadi kufri iyo dimuqraadi iyo markaa ilxaad iyo diin la'aana in dadkii lagu rabeeyo markaasaa looga dhigayaa meelo tarbiyad iyo dacwadda islaamku ay ka socoto waxaan isweydiinayaa meelo markaa ay haystaan nimanka gaalada gaar ahaan kiiniyaanku oo la magac baxay markaasaa yaan muslim magac islaam baa lagu bixinaya yaan muslim maalintii aan ka hadlay beeballada ay dhigayaan iyo manhajkii Kenya ee kaniisadoodu ku taallay dhigayaan ardaydii gacanta ku sidata aanu soo bandhignay waxay yidhaahdeen waa meel islaamka lagu faafiyo mid Kenyaan ka mid ah soo islaamay hadda waxaan maqlayaa aan dalkii ka imi abaarsatijo yani markaasi saqalaynkuba ay ka dhareegsan yihiin habarta indhaalina og tahay baa la leeyahay waa meel dacwadda islaamka laga faafiyo waayahay baadari Maraykan ah iyo shaqaale Chinese soo dirtay iyo kuwa kale oo la midihi ma dacwadda islaamka ay faafiyaan ma akhlaaqda suuban ee diinta islaamka ay dhigaan bal hadda waxaan u bandhigayaa ragga markaa iyo dumarka adduunyada ku nool wixii caqli leh noocay doonaan ba ha noqdaan arinta iyada ah midda kale mahmaa baa jirta waxa ay tahay ninkii wiilwaal la oran jiray baa la ayaa wuxuu yiri mahmaa baa qisay ku saabsanayd qisada uma bixi karaye sacana saadag iyo sawdka maxay isku soo beegay maanta aadan sunna idinka yimi iyo abaarsa tijka islaamay ee maalintii horeba lahaydan wuu islaamay Kenyaanka ah maxaa ugu soo celiseen baraha isugu wada tagteen inta markaa ku faafiseen bulshada waxa weeyaan markaasi waa saxab xeeladu ku jirto laakiin waxaan leeyahay culimada arinta ku hawlan iyo ragga siyaasiyiinta ah hadda maanta waa ayaamo yaro adduunyada ah berri markaa qof waliba dhintay iilka la dhigo waa la soo baxayaa weli malaamaydaani loobin qiyaama inuu jiro waad ogtihiin waana rumaysantihiin ilaahay hortiisana muxaasabada waa imanaysaan markhaatiga shaahidka Maraykanka iyo Kenyaanka gaalada ah iyo dadka diinta ku soo duulay dalka u furaysaan inay meeshay hayaan maxal dacwadeed oo diin laga faafiya ay tahay ilaahay maxaa ugu jawaabi doontaa ila rasuulku uu idin digay calayhi salaatu wa salaam oo waxa uu ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin lir'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna ma jira adoon xil ilaahay u dhiibay bani aadan iyo qeyrkiiba dhinta maalintii ajashiisu dhamaatay allana hor yimaada isagoo khiyaameeyay ra'iyadii iyo bulshadii loo diray ilaa haduu jiraba ilaahay jannada uu ka xarimay ka fiirsada xadiiska saxiixa muslimka ku sugan isu bandhiga idinka nafihiina cid walibna waa inay isu bandhigto liana marka shahaadatu sur baan arkayna hora u tidhaahdeen kutubay ku faafisay jayisa jaamacaday haysato afar kitaab ayaa labaatino diinta islaamka kamid ah waxa dhexdeeda yaala maktabada weyna waa la ogyahay cid waliba way ogtay kuwa jooga iyo kuwa dusha ka eegayaaba bal hadda waxaad markhaatiga furaystaan mid kale waxaan idin sheegayaa Kenyaankan aan hor wadaan maalin walba leedahay nin Kenya islaamay shuruudaha qofku markuu toobad keeno laga rabaa waa maxay waa kan ilaahay quraanka ku sheegay qolada ahlu kitaab iyo yahuudba iyo munaafiqiintooda marka ay ilaahay toobadooda aqbalayo illa alladina taabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim shuruuda ilaahay dhigay eeg yahuudi iyo nasaara iyo munaafiqiin ijraamkii iyo gaalnimadii markay ka toobad keenayaan toobad shuruudihii dhamaysata laga raba islaax amalkoodii hagaajiyaan ba laga raba waxay fasahaadinayeen inay bayiraan ummadayday marka dhaqanka ka bedelanayay diinka saarka ku wadeen faraha ma ka laabteen mise halkii bay ka wadaan ma cadeeyeen waxay fasahaadiyeen amalkoodii ma suubiyeen shaqadan marka xunay hayeen ma ka tageen adduunyada markaasi caan ma ku noqdeen kuwii toobad keenay
gabadhii markaa Soomaaliya ku islaamtay towbadeeda siday u cadaysay Talyaaniga ahayd waynu garanaynaa tii Faransiiska ahayd ee Maali ku islaamtay markay towbadeeda markaasi ay la timi towbad markaasi nasuuxa ah siday u bayintay waynu garanaynaa haddaa run sheegaysaan towbadoodu ha cadaato caalamka ha gasho warbaahinteeda hana ka toobad keenan saniica xun iyo markaasi hoosiiska ay ku jiraan ummadeeda lagu khiyaamaynayo waxay tahay markaa halkaasi waa booraan afkii laga qafilay oo qabarna hooseeyo sheekada aa ka wadaan imaanshiyan halkan imi dabadeed iyo boorikaaska ay imaka boorikaariseesaan waxaan markaa aniga markaa sababahan halkaa uga imi waxay tahay inay yaroo nabigayga caayaya tallaabo lagama qaadi karo anna awoodu ma lihi naag baadariyada ama kaafirada ama markaa kaniisadu wadana waxa weeyaan markaa cidi tallaabo kama qaadi karto maalintii markaa naagtii la oran jiray maxay ahayd Maryana kaniisada Hargeysa ay furtay frontier-ka sheeganaysay tabarruc kaniisada Hargeysa kaga furaysa Catholic ma la hadlay mise waa la canaantay in shakhsiyad aanan magacaabaynin imika oo raad ku lahayd baa fariinii soo dirtay waan ka bari noqdo waan eriyay sheekhadan waxa tiraahdaa haygu darin anigu taamo ogiye waxa weeyaan may nabad gasheen dalka dhibaatada ay keentay hadii tallaabo laga qaadayo waxa soo dhan markaa maxaa markhaati cad u ah waxaanu haynaa maanta qoysas Soomaaliya oo qabaa'ilkeenu ka dhalanay ku abtirsada wada Kirista jeelashiina ayay galeen qaar fara badani inama iyo habla ayaynu haynaa rag iyo dumar baynu haynaa waxaynu haynaa markaasi waliba bulshadan ay gaaladu maanta u doodo madaxda siyaasiyiinta ay yiraahdaan gaaladu waxay nagala hadashay aqaliyadka inaynu xaqooda siino manaasibta dawliga ah iyo markaasi hay'adka iyo markaa dawladka dawladda meelaha ay ku lahayn kaalmada in nasiibkooda la siiyo kuwa loo dooda waa kuwa markaasi weeyaan diinta ka baxay waxa kale oo markaasi aanu ka dhareegsanay daabuuradan iyo jamaacadan iyo kooxadan oo qowmul luud ah inaynu ku hayno markaa jeelasha wadanka wax talaabo laga qaaday ma jiro xarig markaa lagu biiliyo jeelka dhexdiisana wax qiimo ama tarayo waliba waa tusaale yar oo dadku markay wax arkaan lagu aamusiyo waxyaabaha la qabtaa leeyahay markaa qoys Kristaan la qabtay iyo qowmuluud isqaba waxa weeyaan dadka ayaa lagu seexiyaa ayaamo ayaa jeelka lagu hayaa hay'ad baa u diyaara iyo kuwa xuquuqahooda gaalnimo iyo gender iyo jinsi ilaaliya dibadda jeelka waa laga bixiyaa waxa markaa aynu asturi karayn Soomaalida tiri markaa sakaara xaar muuqda bay aasaastay hadii markaasi nidaamka Soomaaliland ka jira uu toobad keenayo dalkiisa uu markaa 30 sanadood ka badan mahalakada ku sii wada ee uu qoolka u galiyay gaalada uu ka furayo de waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa bayina cad iyo toobad cad ayay noqonaysaa waxba yeynaan dadka kala xaganin waxaan dadka aan maanta la hadlayaa ay tahay aniga halkaa waxa iga keenay dhibaatooyinka noocan oo kala ah iyo kuwa kala badan oo sheegaynin weyna sidoo wuxuu og yahay uma waramo waxaan si horta naseexada u dirayaa waalidiinta baraha markaasi dhaqan bedelka iyo diinka saarka ubad u dhigto waa hilba aynu wada leeno laxiyo dambi ban isku nahay waxaan ahay nin culimo oo naasix ah waayeel waalida baan ahay oo hilbihiisu u damqanayaan dhallaankayga wadanka waxaan leeyahay caruurtiina barayaasha aan soo sheegay iyo faracyadooda iyo meelahooda kala baxa intaanay imanin xisaab dhow ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'ala si dhaqsa waa la idinku maslaxaya wasiirbo inankaaga iyo inantaadu noqon doonaan iyo xildhibaan iyo madaxweyne dalka ka noqon oo wasiirka iyo xildhibaanku iyo madaxweynuhu maanta wadankayga qiimeeyay buu kaleey mansiladu haysaa lama jeertaa meel lagu gaaraa maxay tahay dadka markaa loogu xayeysiinaya intay goor tahay wali bari amaan baynu taaganahay waxaan leenahay laga noqdo taasi hadii ay timi dalkayga waxaasi ka jirto waxna aan ka qaban kari waayay de waxaan markii hore iska marmarsiyo ka dalbayaan laha cudurdaar baad haysataa intaad xaq cadeynayso waa hijrada mashruuca waayo maanta meel loo hijroodo Daarusalaam iyo Daarul Islaam baa la hayaa hijradaasi ayaa markaa noqonaysa fardu cayn inaan ka tago meesha iyada ah waxaanay noqonaysaa hijrada meesha laga hijrooda waa Daarul Kufri haddaad igu tiraahdaa sheekh Aadanow Daarul Kufri baa dalka aad ka tagtay jawaabto kooban haddaad iga dhageysato Daarul Kufri culimadu waxa ay ku calaamadiyeen daar kasto nidaam daaquutiya oo kaafira lagu xukumo walow mujtamac oo dhamiba muslim ha noqdee mujtamacayguna waa mujtamac muslim ah nidaamka laakiin meesha ka jira waa nidaam daaquuti ah iyo qaanuun wadciya oo kufri ah oo dimuqraadiyadna sideeda waa mabaadi kufri ah markaasi weeyaan laakiin mujtamacu waa mujtamac muslim ah bil jumla marka la eego iyagoo maanta markaa diinka saarki iyo ilhaadki
iyo markaa kii calmaaniga ahaa iyo taariku salaadki iyo balaayo kale hoos harsanayso iyo kuwale markaa waxaanu noqonay markaa kristaan bay noqdeen iyo balaayo kale niba ay joogaan laakiin waa mujtamac muslima nidaam daaquutiya lagu xukumayo meesha looga carari karaa waa daarul islaam ma shariicada islaamku xukumayso halka shariicada islaamku xukumaysa daarul islaam loo yaqaana ee kitaabka iyo sunnada lagu xukumo walow dadka mujtamaca ku dhaqani isku dhex jirba ha noqdaan hadday doonaan marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dad muuminiin oo maka rasuulka kaga hadhay wuxuu ku tawbiiqiyey oo ku canaantay qur'aanka iyadoo ilaahay kaga warramay carabkii malaa'igtiisa markay nafta ka qaadayeen ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu dhaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiin ilaahay waxa uu ka warramay kuwo malaa'igtu nafta ka qabanayso markaasay odhanayaan maka maxaa ka qabanayseen maxaad uga hijroon weydeen waxay leeyihiin waana la gumaysanaya ducafaan ahayn qaaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha malaa'igta canaantii bay ku soo celisay dhulka ilaahay miyaanu ahayn dhul ballaadhan oo waasica xurriyad iyo fusxad aad ku helaysaan madiine maxaa ugu hijroon weydeen yacni inkaar iyo tawbiiq ayaa markaa halkaa dhakada laga saaray ilaahayna subxaanahu wa tacaala muxuu yaboohay ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'ad masiira way ka calaacaleen saxaabadii maalintii ay Badar ku dhinteen markii la soo qasbay iyagoo dagaalkii Badar gaalada mushrikiinta u soo raacay muslimiintii baa dalay bay yiraahdeen waxa la yiri kuwan ilaahay wuxuu yaboohay markaasi ma'wigooda iyo hooygooda waa jahannam meel loo laabtana iyada ugu xun hadda halka aayadan iyo aayaadka kale quraanka ku jira inay jihaadu ku tahay markaa hijradu fardu ayn ala al-umma wana baaqi zaman muhaddada oo gaara kumay koobnayne rasuulka inoo sheegay xadiis saxiix alayhi salaatu wasalaam la tanqadi al-hijra حتى تنقطع توبة ولا تنقطع توبة حتى تطلع الشمس من مغربها إلا قرحدو إنك قصة والله بطال كي كدعدو إنت كهر رئيسة توبة دو ويفرنتي توبة دي إنت يفرنتنا رسولك وحيري هجردنا ويفرنت هاي أو حويا المركزي ولا هجرون إياه حتى هدو بلد إسلام والشريعة حكومة معازيد كبدته علماء وحنا بلد داعي إلهي اللي قصة مينا يلا قوا الداعي المعسيه كجرين هل لو هجر هدو مركا أنا هجرة وهجرة مشروعة وانا اللي يقول كلفي سببت الضبط يقوى الدارة وتاسي مركزي ويان وحا مركا أذكرون إدين شيئا مهما باجرت عربتي الصومالي دي اسكو وافق سنتي رائد لا يكذب سهم بين مشيغو هداني مي ولايات شريعة الإسلام كلا حكمه والله أرنا يا ولايات إسلامية محن كو أركي وحن كجيم يدلكي عن مركها كيم يدلكي عن صوم مريه هوي بد يبر ميل الله لميل عن صو أركي أو دمبا وحن كسو إلو بمنكرات يا معاصي يا فواحش يا وحلا قاليسين يا وحلا ظلمية يا وحلا إريان هل كاسان كجيمي haddaad leedahay waxyaabaha dhaqan xumada xal looma hayo oo mukhadaraadka xal looma hayo oo qaadka loo maara waayo oo sigaarka loo maara waayo halkii halkan aan ugu imiyo waxa weeyaan wilaayaadka dhexdooda markaasi baabuur wada madmadow oo gubatay baan idhi kuwani maqaar lagu dagaalamo la gubay baa markaas la dhimay waa kuwii qaadka iyo mukhadaraadka halkoodii baa la helay meel caleen qaada lagu calaalinayo kama jirto halkan sigaar lagu cabayo khamriga iyo xashiishada maalin walba booliiska Hargeysa ay soo bandhigaan ee waliba qaadka ku dhex jira iska baday iyo daroogada kala duwane halkan caleen qaada iyo xabad sigaara midna lagu maqiijiyo masrax kama jiro iyo heese iyo muyuusi halkan kama jiraan dad isbooba iyo burcadayn iyo dulmi laysu xoog sheeganayo ninba qofku ka adag yahay halkan kama jirto qofka waxa loo qabsan karaa wixii dumadiisu keensatay oo taasina cadaaladda shariicada islaamka ay u bandhigan tahay marka waxa weeyaan waxaan doonaynaa qofka xaq doonaya yaan marka loo bahalagelinine kaalay oo wilaayaadka islaamka soo booqo adigoo fasax ayaama ku joogaya ka bogo oo dhexmar waxa dabeedna aragto ayaad ka warrami doontaa in waxaana lagu maahmaahay al-insaanu caduwun lima jahila anhu qofku wixii uu jaahil ka yahay cadow buu u noqdaa dhulkan iyo waxa lagaga dhaqmay raayada jihaadka waxa hoosteeda yaallay camala in badan baa jaahil lagaga yahay Soomaaliduna waxay ku maahmaatay caruur iyo cawsiyo biyo ku nool waa loo kala sheekeeya wilaayaadkani waa dalkiini waa dadkiini haddii la idinku yiri cadow bay idinku yihiin cadow idinku maaha aadan sunana maanta cadow idinku muu noqone gacal xabatal muudo naasixu idinaha maantana naasix gurmadiidina abaanahay dulmiga bareerka iyo diinka saarka iyo dadnimo xumada iyo takhallufka
maalin iyo intaan soo jirnayba waxaan leenahay horumar iyo xoreyn baan ku jirnaa iyo ictiraafka Somaliland raadinayso ma kitaab iyo sunna ay ku dhaqantaa bay ku doonaysaa maxay ka rabaan gaala ka maslaxayaan ay ka rogrogayaan ay gaala ka helayaan waxaan idin leeyahay haddaynu xisaabtanno horta meeshan wax madluubo inagaga lumay ma jiro haddaynu leenahay mabaadi saamiyaan haysanaa kitaab iyo sunna ku dhaqanaan ku dhaganaano laakiin haddii wax kale la raadinayo maalintaad ictiraaf hesho maantaan ku arkaaye tinka iyo tagogaad yeelan doontaa nooc mu noqonaya maalintay markaasi Mareykan iyo Yahuudi iyo reer Yurub safaaradahooda ka wada furtaan ay qoys ku qaybsadaan ee aad ictiraaf hesho bal tinkaaga iyo tagooggaaga maalintaa ii sheeg nin baabari wuxuu soo arkay qolaas nin suufi uu meel ku haysto uu leeyahay markaa salawaad buu qaaday يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم واسي صومال واخرده على درجات دائما الابد markuu dhameeyo wuxuu soo ururiyo qurbaanki wuxuu arkay caadis jirto noocaas wuxuu waryaaraheen reer hebel qabiilkii sheegi maayo tuuladoodii wuxuu على درجات inta idinku joogtaa buu qiimo Somaliland intay qiimo idinku joogtaa raadinteeda iyo ictiraafkeedu diin baa loo baabiyay dal baa loo baabiyay ummad baa loo baabiyay dhaqan baa loo baabiyay ummad baa maskaxdooda iyo aqligooda meesha laga gumaysto oo maskaxda iyo aqliga laga fikiro waxa laala waxaynu ku haysano raasamaal iyo faa'iido ma jirno intee ayay qiimo inagu joogtaa raadinteedu aan ka fikirno aynu isu taagno anigu maanta Soomaaliya oo dhan ugu ma baaqayo dawlad cilmaaniye mid shuyuuciye mid qabaliye toona iyo mid juqraafiya waxa lagu baaqayaa dawlad islaama kitaab iyo sunno kumidaysan oo waxa Allah waxa geeska Afrika jooga islaami ay hoos arsadaan iyo caalamka waxay uga yimaadaan baan ugu baaqaya markaasi waxa iyagu ka fikirayaan ay hadhow ay oran doonaan waxa sad markaasi u jeeda waxaan halka uga soo gudbayaa halkan aanimi maxaan ka soo doonay halkan horta waxaan maanta ku hadlayaa waad arkaysaan dhulkan wilaayadka islaamka ah ee xarakada shabaab المجاهدين ay gacanta ku hayso horta waa imaaro geeska Afrika ka jirta midda ugu siqada badan ee ugu markaa horumarsan ee ugu xeesha dheer leh haday tahay siyaasiyan iyo haday tahay dhaqaale iyo haday tahay tarbiyad iyo haday tahay tacliim iyo haday tahay arrimo bulsho iyo haday tahay tacaawun iska daa manhajkii quraanka iyo sunnada lagu dhaqmayo bulshadina lagu dhaqayo warkeeda iska daaye waxa weeyaan culayska saaran halkani dawladda geeska Afrika ugu xoog badan oo Ethiopia jabhad yar oo libaaxi Afrika jabhad yar baa la fuqday inta dawladood ee la dagaalamaya caalamka haday halkan isugu yimaadaan Ethiopia laba toddobaad baad sheegaysaa in laba maalmood may gaadheen waxaasina waasiqada iyo kalsoonida kitaabka iyo sunnada lagu dhaqmayo iyo nasriga Ilaahay ayaa lagu helay marka waxaan ka bilaabayaa maanta halkan waxaan u iminan daaquudka iyo nidaamkiisa meeshuu joogaba in la dumiyo manhajka rabbaaniga Ilaahay adoomada u dareena u soo dajiyayna lagu hogaamiyo lagu dhaqo wa nasihatul iimaan bay kamid tahay man yakfur bidaaqud wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa ayada quraanka aba inoo sheegtay waxaan la hadlayaa wixii aniga igaranaya magacayga iyo muuqayga af Soomaaligan ku hadlaya fahmaya ama Soomaali han noqdaan ama qeyrkood bahdaan markaa ka dhashay jinsiga Soomaalidan si gaar ah ula hadlaya waxaan leeyahay markaa fursadda maanta inay markaa idin daamiyo soo noqon doonto noloshiina anigu ma hubo laakiin waa fursad qaali ah ku fara adeega waxaan ogahay markaa maxaakim sharci ah oo kitaabkiisa sunnada oo looga imanayo Mareykan iyo Yurub Afrikada qaybo kamida oo dadku intay halka yimaadaan ku kala baxaan waad garateen waad aqoonsateen wilaayadku waxay shariicada islaamka la dabaqayo hadee waxay u baahan tahay difaac iyo ansaar abeesooyin baana idin dhex fadhiya niman gaagaaban oo xabashiya iyo kuukuya adoona iyo reer galbeedka markaas iyo kuwa kale la mid ah meeshan inoo fadhiye hal maraan isugu nimaadnaan rujinno oo aan godka ka saarno dalkeena xoreyno dadka diinta inaga iska leh dalkana inaga iska leh dadkana inaga waaye yaa inagu haysta hadaan ku dhaqano shariicadeena intaan xoreysano mabaadideena markaas inagu haysta iyagoo toodii kufrigay meel walba ugu dhabar adeegayaan inay u maraan waxaan leeyahay markaa gaar ahaan goboladii aan ka imiyo runtii waxa tihiin taran iyo tayo iyo dhaqaale iyo horumar iyo siyaasad idinka ugu mutakhallifsan waxa idinkada idin hodayna waan ogahay farriq tasud iyo kala qaybin iyo nin danaysta maalin walba 5 sanadood oo dagaal ku jirta 5 sanadood madaxoodna hormaha isu soo gurataan waxa weeyaan markaasi ari qulux kama ilbaxa ayaynu taaganahay walaalayaalow arinta aqli saliim ah aynu ku fiirino aynu mid iyo laba iyo jamaaco u fikirno
oo kitaabkii ilaahay inoo soo dejiyay aynu dib u eegno oo waxa markaa adduunyo iyo aakhiro inoo maslaxada diin iyo adduunyaba aan ka fikirno taladaasaan idiin soo jeedinayaa ninka maanta taa markaasi maandhaafsanna waxa weeyaan dardaarankayga waan u sii sheegayaa fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amri ila allah muslim min aali fircawn baa qoomkii qibdiyiinta aali fircawn ku yidhi waxaan maanta idiin sheegay naseexada haddaad aqbali weydaan ciribteeda waad ogaan doontaan waxaan idiin sheegay taladayda iyo arrinkaygana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u bandhigayaa rabbi subxaanahu wa tacaala isaga ayaa inoo shaahid ah anigu waxaan ahay markaasi nin muslima oo gob ah oo guri rifaysay oo la dhibay oo la eryaday haddaan soo noqday iyo haddaan kuu maqanahayba waxaynu nahay markaasi walaalo isu maqan iyo hilbo wada dhashay waxaan jirkayga laa yuuminu axadukum xataa yuxibu liakhi maa yuxibu linafsi anigu waxaan nafteyda la jecelay ehelkayga la jecelay ee mustaqbalkayga sidaan u raba inuu qurux bato baan walaalaha iyo tolkii aan ka dhashay aan doonayaa inay la mid noqdaan rasuulku maalintuu safay isku taagay quraysh buu ka soo bilaabay madaxa ilaa inantiisii faadumuu soo gaadhsiiyey markaa madax iyo mijaba kor intaan ka soo bilaabo ayay la raaskaan ka dhashay aan soo gaadhsiinaya waxaan idin ahay naasix amiin diin baanaad igu ogeydeen xoogsi kale iyo kaambey iyo siyaasad iyo haayado samafala mid ku dhex dhuunta maan ahayn waxaan u taagnaa waad ogtay wixii lay dhibana waad ogtay iyadii baan ku maqana iyadii baanan idiin soo wadaa waxaanan idin leeyahay aniga cimrigayga wuu iska gaabayey nasiixadan kuu sheegay maanta wixii ka dambeeya inaad maqlina ilaahay baa yaqaana laakiin taladaa dib baad kaga fikiri doontaa waad ogaan doontaa waxaan maanta kuu sheegayo qof kasta oo imaqlayo soomaali baynu nahay kolley aan idinkula hadlo luqad soomaaliyeed oo wax ka fahmaysaan iyo suugaanteedii oan ugu talagalay munaasabada maanta aan halkan joogo inaan markaasi idinka aqriyo marka aadan sunna waxa uu idin leeyahay anigoo baaqiyo naseexiyo tawsiyaba ka dhigaya dardaaran بسم الله suuradaha waa sadarka koowaade soda gabayga xigmad lagu sakimay samaxaddii diinta hadal saafan murti sooran baan saaka kuu dhigiye saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saxariir iyo sabaanaha kan dhacay salowga meeraaya soomaaliyay siyaabaa jiro adduun wuu silloon yahaye subayhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa subayhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa ha seegina nasri baa soo socdo waa la sugayaaye tilmaan sugan darwiishkii halkuu mariyey saadaasha waa saaxilkeen iyo saxarahaan saami ku lahayne aan sifeeyo bariga afrikuu sagal ka muuqdaaya aan sifeeyo sooyaalka bariga afrikuu sagal ka muuqdaaya waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray saadaashu waa saxa laga bixiyo cisi sabada kuu yaalle sahanka raayada sidee tawxiidka sare u qaadaya safkaa jihaadka lagu suntiyo sawjarrada dhaartay waa siiradii rasuulkoo shabaab soo alkumay sabanka maanta ahe caqiido saafiya ninkii sahay looga dhigay waa sada aakhire soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine subax nool gaal sakaarka laga toogtayo murtad seefta lala gaadho saduu daga saqda dhexe ku gala waa la soo gudhine salaaxi iyo waanada ninkii sardhiya saa dambuu garanee soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye saaxada jihaadkiiyo baaqa samada yeedhaya soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye wabilaahi tacaala towfiiq subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa astaghfiruka wa atuubu ilayk